إذا كان بالتالي هذا مجال هذا كسر سعر ويدو أو ترك جدا بيجا قال صوت هاي ويدا محكمة مدح ويني ولا إسكاك الدفاعية تدخل إسكاك الدفاعية سيدا وقول أقصى بدنا طلع سوي من يدا اليردا وحلها مجال هذا فريستا أنا جايبنا هنا ولا شرية وما نصعون يصيدي هراك وما صعون يسو هذا يدقوه طلولان waxaan marka hore aan tacsiyadeynayaa dadkii aniga soo doortay ee xalay sidii bareerka ah maadartay magaalada loogu laayay waxa la ilaahay u naxariisto waxa kaloon ilaahay uga baryaa inuu ilaahay caafimaad u siiyo inta dhaawaca iyagana sida bareerka xabada loola dhacay baan iyagana maadartay ilaahay u booga dhageelay waalidiinta iyo dadkii annaga na dhalay ee ciyaalka dhalay ay namada ay hablaha la laayay kuwa la dhaawacay dhalan waxa la raqitama raqi tama waana wala iskaga dambeynaya sabra ragaasina rag iyagoo la dulmaya la laayay ayay xisaabsayin oo iyagu maanta iyaga inaga maadaragtayeen de waxa ugu weyn qofka bilaadanka raadiya waa inuu ilaahay agtiisa wax fiican ka helo wax rajeynayna ilaahay agtiisa wax fiican ka helaan inta markaan ka imaado anu muddo saxaafadda lama hadlin waxaan magaalkan joogay waddanka isbedel baa ka dhacay isbedelkii ka dhacay honum buu ku jiro waxaan islahaa ha afartan baxo laakiin aad baan uga xumahay inuu ku afartan baxay inuu dhiig daadiyo oo waliba dhiig qorshaysan u daadiyo dadka salal iyo awdal degani boqolaal sanadood ay wada deganaayeen dhulka wada deganaayeen maxay isku qabsan waayeen xafladaha iyo xeerasha iyo arrimaha iyo ciyaarooga maxay isku qabsan waayeen maanta keenay markii xukuumadda Cabdiraxmaan Erro ay timiday maxay isku qabsadeen su'aasha madaxweynaha weydiinaya waxa isku qabsan isaga ka soo jawaabiyo waxa cusub isku qabsadeen waxa jiray qorshe aan madaxweynaha kala hadlay oo in badan ka hadli jiray laakiin toos u balmaray ayaa maanta fulintiisa ay buurma ka socotaa halka waxa kaga hadlan oran jiray hay'adaha ammaanka iyo kuwa dhaqaalaha reer awdal waa laga ilaaliyaa dawladda cirana markaan u dhisayday ku tabcayna waxaan ku nidhi war kuwa ku jiraan laakiin waa laga ilaaliyay sababtii looga ilaalinayna saakay buurma ka dilaacday oo waxa ahayd inaad dadka la laayo ayee ka waxa la madaxweyne aad baan uga xumahay in adigoo sanadaan jirin maad aragtay dhiig faraal lagu geliyay maanta wax laga filayna ma hayn waxaad ogeedeen in xukuumaddu xeer ka beesha ciise oo ay go'aan ka soo saartay oo wasiirka arrimaha guud ka akhriyay magaalada Seylac la yiraahdo waxaan aanika garanayay maalintii go'aan ka soo saareen inay halkay u socdaan tahay inay labada beelood istilaan oo sidii caruurnimadii waad garanaysaan mucooyada loo jeexjiray soo garanaysaan ee kolnaadna mucooyada wata ascar waa ka baabiyaadna mucooyada wata mucooyada marka hore wasiirka arrimaha gudaha jeexay mucooyadii labaadna waxa jeexay Axmed Yaashi Cali yalla salay jeexay labadii markay isdili waayeen xukuumaddu waxa goostay in dadka iyadu la isay goosto waxa yaab kale ee aan aad ula yaabo waxa kamid ah ilaa xalay albaab kamid ah dadka madaxda ka garab dhow madaxweynaha albaabku way furi waayeen telefoon waa la qaadi waayay go'aan habeenimo lagu dhawaaqo Soomaalidu waxa tiraahdaa sacabka hadaan xiriir ku jirin ma habeenkii loo tuntaa haddaan la doonayn in magaalada la gubo haddaan la doonayn in namada dhibka geysanay dadka leeynay in la arko haddaan la qarinin maxaa go'aanka habeenimo lagu dhawaaqay Cabdiraxmaan Erro weydiinaya maxaa dadkii walaalaha ahaayee doodu ka dhaxaysay aan wada hadashin oo dad reer Soomaaliland iyo kuwa Soomaaliyeed oo walaalo wax garad ay jiraan oo waxa dib ay kala tabanayaan ama waxa dooda keenay kala hadli kara oo dhexdhexaadin kara oo u garsoori kara oo run u kala sheegi kara ka qaldan ay buuxaan
maxaa keenay inaad kulba wasiir adigu aad wasiiradaada ka mid ah aad tiraado caashina garle calina garle madaxweyne inuu qorshe ku diyaarsanaa jiro waxa ku cadeynaya ciidanka militariga ee magaalada sii gelisay waad ogtoo shalay badalka ka mudaharaadaysi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ciidan militariga halka militariga agtiisana degan oo maalintii mudaharaad ku dhacay hal askari oo militari kamid ma soo gal magaalada Hargeysa muddo 7 maalmood oo laascaanood uu ka socday maxaa la yiraahdaa banaanbixii hore ciyaalku mudaharaadiyeen hal askari oo militari kama qayb galin booliska ka qayb galiyay adigu laagi shalay isgoys kasta iyo meel kasta waxa dhigtay rag aan tababar haysan oo aad shalay soo qaramaysay oo jabhada ah ayaad magaalada gelisay oo ciidan militari ku goryaal ku xariisna kuwa dadka laayeen waa kuwa weeyaan anigu talo waa kuwa bidoo talo ku sii waxa kugu huri war dhibaatada ruudkeega dawee arintaana si fiican uga fiirso gobolka Salina beelaha wada dega xilalka u qaybi baan kugu yiri ad 8 xil ugu sareeya afarna rag reer Sheekh Isxaaq aad u dhibtay inta kalena ciisaya gada bursiga tabashadiisu halkaas ay fadhidaaye kuwaad ragga beesha dhexe u dhiibtay ka qaad oo u dhiib baan kugu yiri taladeedii taaseed wallow jilbaad ugu tir madaxweyne saddex isha ka bacdina Cabdulla Sandheera ku dhawaaqay maxaa la yiraahdaa yiliyaan kuma shiri kara ciise sheeric kuma shiri kara haw yaad u dirtay yaa ka odeeyay shalay bay odayaashu ku yimaadeen daraatii ka horreysay odayaashu ku yimaadeen go'aan bay ku keeneen iska daa inaad dad wax garado reer Soomaaliland ama dad kale ka daba dirtay xitaa wasiiradii kuwii gobolka ka soo jeeday maadarorin war odayaashii go'aan bay dhiibeen oo ismaanaan afgarane ka daba tagay maadarone baabuur iyo kaarayaal bad ka daba rartay shalay 4-5 iyo barkii galnimo markii gaadhay rasaastu qoriga ka kubay bilaamin waxa ku bilaabantay qoriga ugu weyn ee magaalada yaalo ku bilaabantay wali fursad baad haysataa madaxweyne fursad ayaad haysataa adambiga aad gashaad ku sixi karto oo aad ka qaban karto oo maanta aan ku soo jeedinayaa imika ciidanka magaalada ka soo saaray dadka leynaya dhammaan ragii gabad falada galayna soo qabo maxkamad soo istaaji madaxweyne marka jananka booliska iyo ka militariga iyo ka sirdoonka aad reerkiina ka dhigatay ku xigeenadana aad reerkiina ka dhigatay ayaan garanayna waxa u socoto laba constituency wadanka waa ka dagaal ka dhacay constituency-ga dhulbaanta loo oran jiray waa ka tagay dawladdaada markaad qaybinaysay waxaad u qaybisay sidii maalintii 2017 oo Muuse dawladda qaybinay Muuse Biixi wuxuu qaybiyay xuduudda ugu shaysa Somaliland ee garowe dusheeda saaran ilaa ta ugu shaysu qaybiyay adigu laakiin xuduudda halkan joogto og leeyahay wax qaybinaysa sidaad wax qaybisana waad ogtahay madaxweyne anu meehi raga dhiiga dadkiisa masaariifsada meehi horano maan masaariifsan maantana masaariifsan maayo iyaga ay soo doortay halkan iyaga ay keenay maalmo dhaweytoole waad arkaysa wixii ugu dhacayo waxaan u liqayon lahaa war saaxiibka hunu muuqibu ku jiraaye intaad wax la xallin karayso intaad wax la hagaajin karayso intaad maad aragtay miiska dushiisa wax kula hagaajin karayso kula hagaaji buu qorshaygu ahaa dadkaygina wax u qaateen inaan sida kuwa tuugtay iyaga iibsada ee kuma bidhigooga inaan hayba u qaateen way shikiyeen waayo waxa u barteen dad badan oo dulliya oo ay 30 sanadood Soomaaliland ku metelay oo iyaga dhibaatadood iyo dhiigoo ku naxay ayay u qaateen qofku markuu sagada ka laba cibood yar inuu iyaga u soo shariyo bood yar iyaguna war walaalayaal iyagana waxa la reeb boorema anigu ninka meehi dhalinyarada waxa la ninka meehi anigu ninka meehi waxaan idinlaahay walaalayaal arrinkaasi rag baa waa la iskugu imanayaa waa inuu isku imanaa salaadiintiina waxa la kaco hadla shir isku keena iraaduun intayna cadeedu dhicin ka soo saarin ciidanka magaalada khasaarahaana aanu ka bixin raali gelin oo aanu wadadeeda marin talaynu isku imanaa sidoo ragyeeli jiray baan yeelina hadii la yiraahdo dadka hadii ciidanka militariga lagu leynayo xaq waxa uu yeelanay istifaacan Cabdiraxmaan Baafi Sakaydi way istifaacayaan hadda ciidanka militariga magaalada ka soo saari weydo ciidanka militariga hadda magaalada ka soo saari weydo oo ragii dambiga kale soo taag weydo maxkamad madaxweyne waa la iska ka difaacaya dadku iska ka difaacayaan
sida ugu dhaqsaha badan talaan isku imanaya dhalinyarada waxa leeyahay magaalada fadhiista annaga aybanayna waa la shirayaa kuma soconayso sidii hore kuma soconayso hadday dhaguhu daloolaan aad iyo aad baad u mahadsantahay